Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan kariyo chicken biryani oo very easy oo ka u baahneen shaqo badan oo ku karin kartid waqti yar. Marka meeshan waxaa iigu jira saliidan waxaan rabaa inaan ku dubto basal. Marka waxaan soo jarjartay 4 xabo oo basal ka badan waa jarjaran kartaa waa sameysan kartaa laakiin aniga 4 xabo bisaan u qiyaastay. Marka basasha hadda inta aan ku shubo waxaan rabaa ilaa ay brown ay iga noqoto. Marka intaan basasha dubanayo waxaan sii karsanaa bariiskaasna waxaa lagu karinaa biyo inta karinin kariska kale. Marka meeshaas way ii saareen waa ujeedaan laba mar camal markuu kala gagadoomo waxaa loo baahan yahay biyahaas in laga miiro bariiska haddana sufriyo kale saaratid ama sufriyadiis naftirkiisa ku ceshan kartaa saliid iyo wax yar oo loo wax carfinayo inaad ku tuurtid iyo hal bakeeri oo biyo that's it. dabkan waa u gaabinaysaa saasoo bariisku ku karsama. meeshaan basashii waaye hadda waa ujeedin brown oo noqday inaan ka bixi waa dikal hadaan ku sii dhaafo basashu iga sii gubanay madow iga noqona madow haduu noqdana maraqaagi qaraaru isku bedelaa dhadhanka waa bas bedelaa. marka saliidan waxaan dhan aan ujeedin aan karin doono saliidan la isticmaalaa. marka hadda waxaan rabaa inaan kariyo bataatigan waxaan u dubaya hadhow inuu iiga jajabo mari waa ogtiin bataati badanaa marka aan maraqyadeeda aan kariyo horta waxa waa dubaa bataatiga iyo kaaroodka iyo waxaas dhan. marka waxaa loo baahan yahay inaad kalar ku shubto marka hadda kalarka aad ku shubtid aad dubaysid iyo markaa dubtid kadib aad kalarka ku shubtid kala shaqay qabtaan. waxaan ka wadaa hadda markaa ku shubtid dhaqso ranjiga ka tirtirmaa laakiin markaa dubtid kadib aad ranjiga marisid kasto ranjiga wuu ku dhagaa bataatiga dhaqso ma ka tirtirmaayo markaa maraqa ku dhex dartid. marka insha Allah hadda markaan bataatigan saan u dubo hadda waxaan rabaa inaan bariiskii aan miiro inta ku kariyo. waa kan waa ujeedin saa idin sheego waaye bariiskii hal bakeeri biyo oo caadi qarfaan ku tuuri heela ku jiro dhagayaro aan ku daray waxaan ku daray filfil iyo caleentaas wax carfisno waa ujeedaan aan ku wada dardaray. marka insha Allah waxaan rabaa inaan dabka u gaabiyo marka kabsar yara meesha u saarayo ujeedin inuu carfis leeyahay barbarooni laakiin ha ku shubina barbarooni ma loogu talagelin. marka insha Allah waa kala bedelaa marka sufriyadan xaggan geena kaasna intaan keena waxaan rabaa inaan maraqi rabaa inaan kariski bilaabo. saliidii aan day basasha ku dubiya ilaa hadda isticmaalaya. hadda waxaan rabaa inaan ku dhaxrito 2 xabo oo bisbaas anaa iska jecel bisbaaska ma loogu talagelin laakiin anaa iska jecel. marka waxaa ii yaala meeshaan xawaajiyadii kulli waa ku wada shubay. mar walba waxaa make sure sameysaa dabkaaga inuu loo yahay dabka yu high zaid kaaga noqonin. marka waxaan haddana ku shubay chickenka waa ujeedaan. marka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu daboolnaado. markaan intaan daboolin horta koo yaanya islees camal u jarjari waa ku saari markaasaan daboolay. waa kana hadda markaan daboolka qaaday yaanyadii kastoo ku huuray. marka dabkiina waxa waaye medium waaye marka tartiib aan u gadgadinayo chickenka waxaa la diidaya chickenka inuu uu dhaqso uu karo maxaa haduu dhaqso karo waa ka jajaba laakiin aniga chickenkeyga markaan jarjarayo waxaan soo weyneysi wax yaryariis ma ka soo dhigin waxaan ogahay karis badan dabka inuu ku daahayo chickenka. markaasaan waxaan iskugu dardartid insha Allah marka haddana aan ku darsaneynaa yaanyadii aan ugu talagalay. marka 2 nooc yaanya isticmaalaa yaanyo gasac waxaan isticmaalaa midka yar oo culeys iyo waxaan isticmaalaa midkii kale oo caadiga ahaa. midkii caadiga ahaa waa kana aan mar walba isticmaalo iyo waxaan isticmaalaa yaanyo gasac noocan aan isticmaalaa noocan waxa waa urdhan mala waxba ma lahan yaanyo kale la soo shiido waa. marka insha Allah markaan isku dardaro wax yar aan joogo aan dabka aan ku haayo ma aha inaan cabaar ku haayo maanta dhan gadgadiyo maba u baahna waxaas dhan wax yar loo baahan yahay isku dardarkaas inuu isgaargaari loo baahan yahay yaanyada iyo waxaas. marka hadda waxaan ku darsanaa plain yogurt nooc walba plain yogurt isticmaali kartaa 2 qaando 3 qaando inta rabtida isticmaali kartaa. marka ani waa ujeedan inta isticmaale ka badan ma rabo inaan isticmaalo 2daas qaando. marka insha Allah tartiib u gadgadinaysa easy waaye karisida noocyaha kale saani u kariyo ma loo kariyo noocyo badan loo kariyaa biryanigan. marka midaaba jiro dabka inta saarna wax walbo asoo dhulka yaalo sufriyada isku dardareysa markaas wax aad dabka saareysa. marka waxaan ku shubanaa maraq maaji oo yaraan ku shubanaa
horta xawaajiyaal badan oo ku jiro. Marka xawaajiga hadda aan ku shubay waxa waay toon, kabsar, zanjabiil iyo kismaayo xawaaji. Intaas aan isku soo tumay meeshaan ku jiro aan hadda ku shubanaa. Hadday ma ku shubanin sidiisa bas idin sheegay waay biryaaniga originalkiisa dhulka soo yaalo waxaan dhan lagu dardaraa. wax kasto adoo dabka saara markii waxaan isku dardartid kadib dabka la saaraa. markaas dabka loo gaabiyaa waa la iska dhaafaa tartiib wala saacado badan oo noqata kariska ma ahane wax la isku dardara isla markaas la cunayo ma aha. laakiin anaka wadan qurbaan joognaa wixii waxa waaye orda lagu karinaya. laakiin alxamdulillah waxun ma karino Soomaali hadaan nahay ma sha Allah raashinkeena waa macaan badan yahay. inkastoo waxa hadda aan karinay ay leeyihiin hindida laakiin anakana waa karsanaa. marka insha Allah waa daboolay hadda waa ku ujeedaan markaan daboolo hadda waxaan rabaa inaan aan ku daro bataatigi iyo basasha. bataatiga ma karsano waa yani dabka kor waxaan ka soo saliid leen ku soo dubay. bataatigan ciiriin waaye basashina hadda aan dubay diyaar waaye. basal oo karsan waaye. marka saas iskugu dardaro dabka waxaan ka dhigaa low waa iska dhaafaa marka 2 saacadood 3 saacadood 1 saac intii adi arabtid. bataatigaas tartiibu u karaa ma ka jajabayo waxba ma noqonayo ma sha Allah. wallahi raashinka hadda aan karinayo naag ay igu dhagan waxay dhahday maxaa karisay maxaa karinaysaa ay igu tiri. markaas waxaan dhahay waxaan karinayaa bariis oo biryaan la dhahayo. maxaa waay dhahday wiligeega ma cunin waa ku keenaa aan dhahay insha Allah markaan kariyo waa dhadhaminaysaa. marka waxa waay marka biryaani karinaysta carafkiisa waxa waay zaaid u caraf badan yahay ma sha Allah waay. laakiin xawaajida hindida loogu talagalay ma isticmaalin ani xawaajideena caadiga aan isticmaalay. hindida waxa waay xawaajiyo badan isticmaalan oo zaaid u badan. marka aniga waxaan isticmaalay xawaajiyo qiyaas sa anakan u cuni karno maxaa raashinkeena haduu xawaajiyo noocyaal kale uu ku jiro ma la cuni karo. taas waa anaka xawaajideena caadiga aan u isticmaalay. marka waa badhamay diyaar waa xagana bariiskiya ii saaran oo ready color yaraan ku shuba that's it. maraqi waa kana 1 saac uu ii saarnaa maraqeyga aniga waa ujeedin soo noqday ma sha Allah. biryaani waxa waa iska caadi oo yani oo ka rabin shaqo badan waa isku dardareysid leeyahay dabka la u gaabinaysa 1 saac uu iska saarnaana soo dajinaysa ready waa bariiskana mar hore aan bakariyo. marka raashinka dhan kariskiisa waxa laga yaabaa inuu igu qaatay 30 minutes laakiin maraqa aan gaabiyay aan sugay 1 hour kale igu darsamaayo. laakiin wax oo saas adag ma aha wax saas yani waqti badan oo gelinaysid ma aha maanta dhan istaagnaanayso subaxdii ilaa duhurtii wax karinaysid ma aha. marka insha Allah walaalaheyga anna waa kan waa kariye idinkana tijaabiya bariiskana waa kana waa kariye waa ujeedin easy waaye wax waqti badan oo la gelinayo ma aha bas aan idin tusay. bariiska caadi biyo aan ku kariye leeyahay maraqina waaba idin tusay waa kana ما شاء الله soo carfaayo waxa waay ma walaga hadli kara waraashin kan maanta aan kariye. waxaan idin dhihi lahaa try gareey idinkana insha Allah raashin aad u macaan badan aan karsan doontaan. hadii martay idin soo socoto easy waaye waa sameysan kartaan walaalaheyga insha Allah. wax walba ani aan ka soo idin la share gareena iyo wixii hadda kadib aan baran doono insha Allah waan idin la share gareyn doonaa. assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh walaalaheyga.